wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysaay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqo raadis qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a TPLF oo la sheegay sababta ay haatan dib ugu bilowday dagaalka inay tahay sababtu 6 bilood ee xabad joojinta socotay in markaasi ay diyaarado si qarsoodiya ku tegay Maqale ay u geeyeen hub lidka diyaaradaha droniska haatan ay la soo baxeen oo markaa awoodooda ay markaas si muujinayaan iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed laftarkiisa oo dhowr maalmood ka hor qiray in nimanka hub loo geeyay si qarsoodiyana loogu geeyay laakiinse wuxuu yiri waxba naga qaadi kari maayaan haddaba nooca hubka ay heleen iyo goorta ay heleen ayaan barnaamijkan markaasi bandhigi doonaa taasi oo aan ku sameynay dabagal badan ku soo dhawaada barnaamijka waagaag barnaamijkeena xaqiiq raadis waa barnaamij investigative oo inta badan xogaha wararka iyo moogtay macluumaadka jira aan ku baadhno barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa haddaba TPLF oo la sheegay inay haatan awoodeeda ay ishubsatay oo markaa isqiyaastay haatan in ay iska celin karto markaa xukuumadda Ethiopia wayn ognahay sanadkii hore TPLF dagaalkii ay qaaday ilaa Addis Ababa 100 kilomitir wax ka yar bay u jirtay laakiinse markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu Turkiga tagay ee uu soo qaatay diyaaradaha droniska waa kuwii gam laga dhigay ee dib loogu soo celiyay markii TPLF sidee u soo yaacayeen ay ku soo noqdeen gobolkooda Tigreega kadibna ay sheegeen in calanka cad taageen oo nabad ku dhawaaqeen oo xabad joojin baan doonaynaa bay yiraahdeen 12aad ee sanadkii hore ilaa bishii koowaad ilaa bishii saddexaadna dhinaca xukuumadda Ethiopia laga sugayay xabad joojintaasi iyaguna in aqbasho bishii saddexaad ba xabad joojintii markaa xukuumadda Ethiopia aqbashay markaa nimanku nabad ayay markaasi calanka cad bay taageen haddaba imika waxa lagu jiraa bishii 8 bilood kadib TPLF haatan way goodiyeysay aduu bishii ugu dambeysay ee July ka soo qaad ilaa Augustan in ku jirno yacni waxay ku taamayeen oo markaasi ay lahaayeen gortan ay ka galayaan markaasi wada hadallada nabadda 6 bilood ee hore wax walba si nabad ay u socdeen waan ogol lahay qallinkay ku duugayeen processkii isku soo dhaweynayay inta dhowr jeer baa la sheegay markaasi in si qarsoodiye ay u kulmeen xubnaha socda TPLF iyo dawladdu marka hadii xagga nabadda ayay ka talinayeen ismaana moogtay dawaalwaaleen laakiinse bishii July wixii ka dambeeyay shuruudo adag bay soo bandhigeen wada hadli mayno wada fariisan mayno ilaa aad shuruudan ofisid mooyaane ay kala hor yimaadeen abi soo taagnaan baa laga arkay marka haddaba waxaad ogaataa maxaa iska bedelay TPLF barnaamij aan ku sameynay bishii June oo barnaamijka moogtay falaqaynta siyaasadda caalamka Soomaal news channel keena kale aan kaga warnay moogtay warar sheegayay diyaarado moogtahay galay Maqale taageeray diyaarado markaas lagu tuumayeen yihiin diyaarado Mareykanka u leeyahay oo kale oo ka duula Djibouti baa la sheegay sadhiga ku leeyihiin oo moogtahay dadkan hawada u kuur gala ay ku arkeen iyo socota diyaarado kale oo markaa bilii ugu dambeeyayna si qarsoodiye ku tagay ayaa jiray marka warar la isla dhexmariyay baa jirtay oo maxay talo diyaaradaasi ka doonaysaa dadka qaar baa lahaa markaasi ku taageeray moogtay Ethiopia malaha hub u geysay moogtay hub casriya dadka qaar waxay sheegayaan marka in wada hadallada moogtay arrimaha isku soo dhaweynta ka dhax shaqo maadaama reer galbeedku ay dhexdhexaadinayaan xukuumadda Ethiopia iyo markaasi iyo Tigreegiba hawlaha dhexdhexaadinta ku jiraan dadka qaar sheegayeen aduu ka kaalay ilaa bishii June ilaa iyo July laga soo gaarayo iyo xitaa August dhawaadkii July bartankeedii waxa la sheegay in diyaarado markaasi si qarsoodi habeenkii ay ku tagi jireen Maqale iyagoo waliba diyaarado casriyeed la isticmaalay oo raadaarka ka baxsanaya aaway nidaamkii difaaca Ethiopia la isweydiin karaa waxa la sheegay marka in raadaarka ay ka baxsadeen diyaaradaasi si qarsoodiye ay ku kareen runtii Ethiopia isma lahayn TPLF baa hub urursanaysa xubaa moogtahay xukuumadda Ethiopia dhinacan moogtahay wada hadallada nabadda iyo iyagaba la bariyay lahaa Tigreega cuntada u sii daayay iyo oo moogtahay markaas lahayn waxba iskama keergareenin oo moogtahay awood bay leeyihiin doonaan iyo dib bay soo kici doonaan toona isma lahayn waa nimanka jabiseen bay islahaayeen sidaa darteed waxa ay sheegayaan haddaba dadka militariga Faranqeeya haatan in ay jirto markaa diyaarado
diyaaradahaasi tegayay markaasi maqale inay hub casriga u geeyeen markaasi TPLF oo markaa ay ka mid tahay hubka lidka diyaaradaha droniska maadaama ay TPLF waxa nafta u keenay ay tahay diyaaradda Bayraktar TB2 ee dronta Turkigu sameeyo haatan waxa heshay hadaba TPLF lidka diyaaradaha droniska gantaalo khatar ah oo droniska dhulka soo dhigaya taasi ayaa haatan la xaqiijinaya oo dad badan oo militariga falanqeeya ay haatan markaasi sheegeen in la hubo inay haystaan haatan nimankaasi waxa kalsoonida siiyay ay haatan ku dagaalamayaan ee ilaa Anfar iyo deegaanadii Axmaarada ay u soo galayaan hadaba deegaanadii ay ka yaaceen bari hore ay haatan dib u soo galeen marka waxa halkan laga arki karaa inay awood soo yeesheen baa la leeyahay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa hadaba 3 cisho ka hor isagoo la hadlayay dhalinyarta bilaa camalka barnaamij wani ka hadlaynay ma garanaysa wuxuu sheegay in markaasi TPLF uu jecin 10 sano moogtay 3 sano dagaalama inay ka wacantay 10 sano wada hadlaan wada hadal uu doonayo oo nabad uu doonayo laakiinse wuxuu yiri waa ognahay kuwa hubka soo siinaya buu yiri sida qarsoodiga ugu geeyay hubka doonaha soo siiyaan xitaa iyagu soo raacaan buu yiri annaga waxba naga qaadi maayaan awoodeedan leenahay wal baabinina marka waan ognahay in hub si qarsoodi lagu geeyay marka way ka warhashay goordaba xukuumaddu laakiin waxa la sheegayaa in aanay intii hore dhoon ay iska hurdeen oo moogtay islaayeen TPLF wad baabiseen markay diyaaradaha iska soo socdaan malaha qaar nabad u socdiyo waxba islaayeen adigu haatan nimankii waxa la xaqiijiyay inay anti drones haystaan markaasi oo ay diyaaradihii moogtay drontii awoodii dhamayd ee marka ku faanayay abi ay haatan dhulka soo dhigayaanba dagaalkuna haatan dhulka buuraleyda ee Soomalba ka socda diya deegaanada Anfarta iyo Axmaarada ee agagaarka Koobo ayaa haatan la sheegay marka inay labada dhinac ka soo galeen oo marka bariga iyo galbeedkaba haddii ay dhulka buuraleyda ee Soomal Mountains qabsadaan waa dhul istiraatiiji awood moogtay deegaanada aasoo dhaya gacanta ku dhigaya marka dagaalku ilaa haatan u socda waxaa la sheegayaa marka inay marka adag tahay haatan sida loo kala adkaado dagaalkan uu noqon doono mid lagu reeqmo waa barnaamijkan intaas uu ku dhan yahay tan iyo kulantiina dambe nabadgelyo